kulan waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya waa maalinimo axad taariikhduna ay ku beegantahay 13 bisha 12 2022 qodobada wararkeena ugu doorona waxaa kamid ah maleeshiyadka al-shabaab oo dib u la wareegay deegaanka Wabxo oo maalmo ka hor ay ciidamadu gacanta ku dhigeen isla markaana jab weyn oo u geysteen xarakada al-shabaab deegaankaasi oo maalmo kooban ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay gacanta ku hayeen ayay shalay galab dib uga baxeen taasi oo lagu micneeyay sababo la yaab leh ka bixitaanka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan idin soo gudbin doonaa sababaha ciidamadaasi ay uga laabteen iyo odayaal dhaqan ku sugan degmada Ceelbuur oo ururka al-shabaab ay gacanta ku hayaan oo qaylo afka furtay iyo shacabka deegaankaasi oo walaac weyn ka muujiyay bixitaanka ciidamadu ay deegaanadaasi ay ka baxeen magaalada Muqdisho waxaa ku soo badanaya dilalka qorshaysan ee ay fulilayaan dablay hubaysan oo iyadu markaasi hay'adooda la garanaynin 24 saac ugu dambeeyay tira aad u badan oo iskugu jira mas'uuliyiin iyo waliba dad rayid ah ayaa lagu dilay 24 saac ugu dambeeyay magaalada Muqdisho dablay hubaysan oo hay'adooda la garanaynin iyo waliba ururka al-shabaab ayaana magaalada u warsanaya dadka shacabka iyo mas'uuliyiinta dagaalka afka ee u dhaxeeya wasiirka arrimaha gudaha wasiir fiqi iyo waliba gudoomiyaha amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir oo cirka isku sii shareeray iyadoo ay soo badanayso in mas'uuliyiinta sarsare ee iskugu jira wasiiro iyo waliba xildhibaano iyagoo ay isbeegsanayaan xilli magaalada Muqdisho xaaladeeda amnina ay ka sii darayso oo dablay hubaysani oo markaas haybteeda aan la garanaynin ay dilal joogta ka geysanayso gudaha magaalada Muqdisho dagaal beeleedyo wali ka socda deegaanka Cadeyle iyo odayaal iyo waliba ciidamo tiro badan oo maanta ka baxay magaalada Muqdisho oo ku wajahan halkaasi iyo xiisada oo cirka isku sii shareeraysa iyo waliba xaalad cakiran oo halkaasi ka taageerayaan sidoo kale idin soo gudbin doonaa dhinaca kale waxaynu eegi doonaa dagaaladii ka socday gobolka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe iyo goobihii ay ku dambeeyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee halkaasi ku sugan guulaha ay gaareen iyo afayeenka ururka al-shabaab oo qaylo afka furtay isla markaana walaac weyn ka muujiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse iyo dadaalada ay wadaan iyo waliba qorshe la yaab leh oo uu ku tilmaamay mas'uuliyiintaasi inay u mareegayaan mujaahidiintooda waa sida isagu hadalka u dhigay ayaan warkeena ku soo qaadan doonaa waxaan dhinaca kale warkeena ku eegi doonaa xiisad xoogan oo ka taagan magaalada Hargeysa iyo Soomaaliya ahaanba geyiga Somaliland taasi oo u dhaxaysa xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi iyo waliba xisbiyada mucaaradka oo tabashooyinka qabay dhaliilo waaweyn oo soo jeedinayay 13 November oo maanta ku beegana ku dhawaaqay inay dibadbaxyo looga soo horjeedo xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi ay dhigi doonaan xaaladda ayaa xalay cakirneed waxaana hadda eegi doonaa bal xiisada iyo waliba beesha caalamka oo warar ka soo saaray iyo gudiyo iyagana gudiyada culimo udiinka iyo waliba gudiyo kale madax banaan oo iyagana ku jira sidii xiisada loo dejin lahaa labada dhinacna xaaladooda loo dejin lahaa walow marar badan ay ku guuldareysteen dawladda Itoobiya iyadana soo faragelisay saraakiil sare u soo dirtay halkaasi ayaan warkeena ku eegaynaa waxaan gabi ahaanba warkeena ku eegi doonaa xoogihii ugu dambeeyay dalka Soomaaliya daawadayaal balse waxaan si qadarin iyo xushmad leh ka codsanaynaa haddii soo gaar muuqaalka like saara oo nagu soo biiray waana idinka mahadcelinaynaa la joogitaankiina mahadsanideen aynu ku bilownay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo maalmo ka hor u qabsaday deegaanka Wabxo ka tirsan gobolka Galgaduud ayaa ciidamadu dib uga laabteen shalay galab kadib markii la sheegay in ay digniino culus ay ka imaadeen ciidamada Africom ee dalka Mareykanka u hogaamiyay waliba kuwa ATMIS ee iyagana nabad ilaalinta u jooga gudaha dalka Soomaaliya kuwaasi oo sheegay in khatar weyn ciidamadaasi ay ku jiraan halaagna ay kala kulmi doonaan haddii ay halkaasi sii joogaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa goobtii waxaa la sheegay inay iskaga baxeen ayna dib uga laabteen fariisiimihii iyo waliba goobihii ay kaga sugnaayeen deegaanka Wabxo oo maalmo ka hor la ogaa in ururka al-shabaab oo 15 sano ugu dambeeyay deegaanadaasi oo haystay in jab weyn loogu geystay isla markaana halkaas ay ciidamadu ku soo bandhigeen amiiro dhagar qabayaala oo muddo badan dhibaato xoogan u geysanayay dadka shacabka ee halkaasi ku sugan maalmo kooban oo halkaasi ay ku suganeen ciidamadu waxay ka sameeyeen dhaqaaq iyo waliba guulo waaweyn iyagoo waliba shacabka Soomaaliyeed ee halkaasi ku tabaalaysan gaarsiiyay adeegyo iskugu jira cunto iyo waliba teendooyin iyo waxyaabo agabyo oo markaasi gargaarka aas-aasiga oo ciidamadu markaasi ay wadeen waxayna shacabku ku diirsadeen maalmihii halkaasi ay ku sugnaayeen sababta laakiin ciidamadaasi ay uga baxeen ayay si weyn uga walaaceen shacabka deegaanka Wabxo oo ku tilmaamay in ururka al-shabaab haddii ay soo galaan ay jab weyn iyo waliba dhibaato xoogan ay kala kulmi karaan isla markaana cadaadis ay ku saari karaan sababta ciidamada loo soo dhaweeyay halkaasi ay u joogeen iyo sababta waliba ay u dagaalami waayeen waana arinta ay odayaasha dhaqanka ee deegaanka Wabxo ay qaylada afka baraha bulshada ay ku la wadaageen dhibaatada soo food saartay deegaankooda maadaama ciidamadii ay isku haleynayeen ay deegaanka ka baxeen ka bixitaanka ciidamada halkaasi ku sugan ayaa lagu sheegay in
ciidamada Africom iyo waliba kuwa ATMIS oo ayagu aan doonaynin in guul ay ciidamadu gaaraan deegaanana ay qabsadaan ayaa digniino culus soo saaray oo sheegay in ururka al-shabaab ay khatar weyn ku soo food saareen halkaasi culays weyn oo ciidamada soo food saarayo isla markaana loo baahan yahay in xeelad dagaal ahaan ciidamadu dib ugu soo laabtaan ururka al-shabaab ayaa si nabdoon ula wareegay deegaanka Wabxo iyagoo halkaasi ku soo bandhigay ciidamadooda iyo waliba goobihii ay ciidamadu ku sugnaayeen oo ayagu ay hadda maamulayaan ayna gacanta ku dhigeen deegaanka Wabxo ayaa ahaa marin la doonayay in lagu gaaro qabsashada degmada Ceelbuur oo ururka al-shabaab ay gacanta ku hayaan balse rajada deegaanka Ceelbuur ayaa dib u laabatay kadib ciidamadaasi ka soo laabtay ee soo baneeyay furimaha hore ee dagaalka ma aha deegaankii koobaad oo ciidamadu ay ka soo laabtaan balse xeeladani hadda looga laabtay deegaankani ayaa waxaa lagu tilmaamay khatar weyn in shacabkaasi ay soo food saari karto magaalada Muqdishona waxaa maalmihii ugu dambeeyay ku soo badanaya dabley hubaysan ayagu dil iyo dhacba ka geysanaysa gudaha magaalada Muqdisho iyadoo waliba la ogsoon yahay in ciidamadii ugu badanaa ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho mas'uuliyiintiina ay joogaan balse waxa arintaasi lagu macineeyay in dableydani ay dilal toos ah ay ka geystaan isla markaana ciidamadu aysan soo qabanin inuu jiro khilaaf xoogan oo u dhaxeeya gudoomiyaha amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir iyo waliba wasiirada sida wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda federaalka Soomaaliya oo la sheegay inuu isagu beegsi ku hayo gudoomiyaha Cali Yara Cali isla markaana ka wareejiyay gabi ahaanba cadaadisna ku saaray in taliyaasha ciidamadu aysan la shaqeynin gudoomiye Cali Yara Cali wuxuuna maalmo ka hor cadeeyay Cali Yara Cali in ay jiraan habacsanaan amni isla markaana xaaladda hadda ay ka sii dari karto hadii aan wax laga bedelin wuxuuna ku tilmaamay in taliyaasha ciidamadu ay ka marqaataan madaxtooyada iyo waliba xafiiska ra'iisul wasaaraha isla markaana isaga aysan wax gacan ugu jiray iyo wax tala wadaaga aysan lahayn taliyaasha ciidamada ee gobolka Banaadir Cali Yara Cali oo 5 sano ugu dambeeyay ba shaqeynaya isla markaana ahaa mas'uul sare oo ka dhex muuqda mas'uuliyiinta gobolka Banaadir ayaa hadda waxa uu magacaaban yahay gudoomiyaha amniga iyo siyaasadda iyo waliba gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir isagoo intaasi oo jaga isku haya ayaana wuxuu afka furtay calaacal ku aadan in dawladda federaalku ay sameynayso qorsho habacsanaan iyo waliba dhibaato u keeni kara shacabka gobolka Banaadir isla markaana taliyaasha ciidamadu aysan wax xoga siinaynin oo ay toos u geynayaan madaxtooyada dalka Soomaaliya looga arrimiyo wadanka Soomaaliya iyo waliba ra'iisul wasaaraha wasiirka arrimaha gudaha wasiir fiqi ayaa weerar afka marar kala duwan ku qaaday gudoomiye Cali Yara Cali oo isagoo hore ula soo shaqeeyay dawladii hore ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hadal walba oo warbaahinta uu ka jeediyana waxa uu daba istaagay si la yaab leh isla markaana uu tafaasiil iyo waliba dhaleecayn iyo fadeexad uu ka gudbinayo gudoomiyaha amniga iyo siyaasadda waa wasiirka arrimaha gudaha wasiir fiqi weerarada uu ku qaadaya ayaa kamid ahaa hadallo hore uu ka jeediyay gudoomiye Cali Yara Cali oo ku tilmaamay in shacabka magaalada Muqdisho ay ka feejignaadaan dhagaraha ay maleegayaan xarakada al-shabaab iyo waliba in beesha hawiye ay ciidamo gaara oo magaalada baara isla markaana ka tirsaneen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay sameystaan si loo xaqiijiyo amniga magaalada Muqdisho iyo gabi ahaanba xaaladda gobolka Banaadir wuxuu dhinaca kale Cali Yara Cali oo tusay in la dawaan galiyo qabiilada kale ee aan ahayn beesha hawiye ee degan magaalada Muqdisho si amnigooda loo sugo isla markaana khatar walba ay soo mareeyaan isagoo markaasi uga gol lahaa in gobolada waqooyi iyagu ay ka dambeeyaan ururka al-shabaab ayna dhaqaale badan ku bixiyaan taasi oo dawladda federaalka iyada naftirkeeda ay horeyba u sheegtay waxa maalmihii ugu dambeeyay soo badanayay weerarada baraha bulshada ay isku hayaan mas'uuliyiinta sarsare iskugu jira xildhibaano wasiiro iyo waliba mas'uuliyiin hore xil u soo qabtay iyagoo midba midka kaleeto uu saynta ku dhagan yahay moodid in xoolihiisii uu ka dhacay ama uu ku eedeynayaba ururka al-shabaab in iyagu ka dambeeyaan mas'uuliyiin sarsare oo hadda dawladda federaalka ka tirsan ayaa lagu eedeynayay oo mas'uuliyiin sare ay eedo waaweyn dusha uga tuurayeen in iyagu ka tirsan yihiin xarakada al-shabaab halka kuwa kalena lagu eedeynayo furimaha hore ee dagaalka ay ku sugan yihiin tan iyo inta uu bilowday kacdoonka shacabka dagaalka dawladda federaalku ay cilaamsay waxa soo badanaya khilaafka mas'uuliyiinta u dhaxeeya kuwaasi oo iyagu aad moodid inay isku eedeynayaan deegaanada ay hogaaminayaan mas'uuliyiinta laga qabsaday ururka al-shabaab iyo deegaano kale oo ururka al-shabaab ay gacanta ku hayaan iyadoo waliba mas'uuliyiinta qaarkood ay beegsanayaan qabiilada qaar isla markaana ay ku tilmaamayaan in iyagu ay soo hubeynayaan ururka al-shabaab si kastaba ha noqotee mas'uuliyiintani iyagu is eedeynaya ee dagaalka warbaahineed ee afka isku haya ayaa sabab u noqon kara baa la yiri amni darrada ka taagan magaalada Muqdisho iyadoo 24 saac ee ugu dambeeyayba in ka badan 10 qof oo iskugu jira mas'uuliin isla markaana kamid ahaayeen culimo u diin waaweyn iyo waliba saraakiil sarsare oo ciidan lagu toogtay
magaalada muqdisho dableydii dhibaatadaasi samaysayna aaban gacan lagu dhigin boomee goobta ay ka baxsadeen. saraakiisha ciidamada oo khilaaf xoogan kala dhaxeeya mas-uuliyiinta sarsare ayaana la sheegay in iyaga naftirkooda sabab u noqon karaan in la fashilin waayo oo kooxahaasi gacanta lagu soo dhigi waayo qaybo kamid ah. 24 saac ee u dambeeyayba waa si isdaba jooga ayay dilalka toogashooyinka uga dhacayaan magaalada muqdisho iyadoo shacabka khalkhal amni uu soo wajahay isla markaana horeyba ay cabsi weyn uga qabeen maleeshiyaadka ururka al-shabaab iyo dhagaraha iyo waliba qaraxyada ay soo maleegi karaan. balse dableydani oo markaasi aan shabaabna aysan sheeganin daacishna aysan sheeganin ayaa walaac weyn ku dhaliyay shacabka magaalada muqdisho gabi ahaanba gobolka banaadir. odayaal dhaqan iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo aad u tiro badan ayaa ka baxay magaalada muqdisho kuwaasi oo aan baxay degmada Cadayle oo maalmo dhowr ah ay ka socdeen dagaal beeleedyo u dhaxeeya beelaha halkaasi dega kadib ururka al-shabaab oo deegaanadaasi laga xoreeyay. dagaal beeleedyadan iyo waliba ciidamada la khalkhal gelinaya ee ka soo baxaya deegaanada ayaa la sheegay in arintaasi ka dambeeyaan ciidamada ADMIS oo ayagu khalkhal amni ka abuuraya deegaanada laga qabsaday iyo waliba deegaanada ay ku wajahan yihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed taasi oo ay gogol leeyihiin inay hakiyaan isla markaana ay xagal daaciyaan dadaalada ay wadaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo waliba kuwa macawisleyda ee deegaanka. waxaana arintaasi lagu micneeyay in ciidamada ADMIS iyagu ay ilaashanayaan mishaarkooda isla markaana qandaraaskii ay ku joogeen gudaha dalka Soomaaliya oo ka soo xirmayo saraakiishuna ay meeshaasi dhaqaale la'aan ay kaga dhacayso haddii ciidamadu ay sii wadaan dadaalkani. waxaana cadaanaysa in ciidamada Soomaaliya ay isku filan yihiin taasi iyagoo uga golle ayaa la sheegay inay khalkhal amni darro ay ka abuurayaan gudaha dalka Soomaaliya. qabiiladani ayaa la sheegay in iyagu hubka iskugu dhiibeen isla markaana dhaqaale ay ku bixinayaan si dawladda federaalka ay halkaasi uga xagal daaciyaan maadaama lagu eedeynayay mas'uuliyiinta ugu sareeya dawladda federaalka in iyagu ay ka dambeeyaan oo shacabka ay hubka iskugu dhiibeen. dhanka kale xiisad xoogan ayaa ka taagan Somaliland kadib mucaaradka markii ay cilaamiyeen 13 November inay dhigi doonaan dibadbaxyo looga soo horjeedo xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi. xalayto magaalooyinka waaweyn ee Somaliland waa ay qasnayd shacabkuna barnaamijyada ayay iskugu soo baxeen iyagoo sugahayay 13 November inta ay kaga dhacayso. madaxweyne Muuse Biixi ayaa bil koor waxa ay golaha deegaanka u sameeyeen muddo kororsi 2 sano taasi oo xisbiyada mucaaradkana ay ka digeen ayna arintaasi ka xanaaqeen. waxayna sheegeen in dibadbaxyada ay dhigi doonaan isla markaana ay ku dhawaaqi doonaan dawlad u adeegta shacabka Somaliland oo ka madax bannaan xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi. madaxweyne Muuse Biixi ayaa arintaasi isagana ka sii diyaar garoobay isagoo waliba xabsiyada ku yaala Somaliland gabi ahaanba dadkii ku jiray oo ka qaaday in ka badan 600 oo qofna sii daayay taasi oo la sheegay inuu uga leeyahay madaxweynuhu inuu banaysto xabsiyada si uu ugu ururiyo taageerayaasha xisbiga wadani. waxaa dhinaca kaleeta iyadana soo baxaysa in madaxweynuhu uu diyaarsaday ciidamo special oo isaga ka amar qaata kuwaasi oo doonayo inuu gabi ahaanba ku wiiqo una ku uwaarsado mas'uuliyiinta xisbiyada mucaaradka iyo waliba taageerayaashooda. daawadayaal qodobadaasi ayaa warkeena ugu dambeeyay tan iyo kulanti dambe intaan ka gaarinin waxaan idinka tegaynaa amaana Allah.